السلام عليكم أصحابي كسولو هذا فلانقين أفلانتا الصومالي هوت شو ما أنتوا حندي ولا فيلم هذا الحساب هذا وجرمان كوميدي أوليرا ساكمي شكسبير فضلا هدي أنا نقول سبتاي سبسكرايب كره هدي أنا مقال كهشوا لايك صار ما تسني داوش وعن زكي مولر ومحبيس لو سو حري أسوق داعية بنجي wuxuuna xabsiga dhexdeeda ku qaataa waxbarashada la siiyo maxaabiista macallimad uu dhigaysay ayaa waxay tilmaamtay zaki inuu yahay damiin xitaa uu ka liito ardayda fasalka shanaadka xitaa macallimaddu waxay sheegtay in gooni loo xiro oo laga dhex saaro maxaabiista kale nasiib darro ugu dambeyn waa la sii daayey wuxuu wataa taleefan yar iyo xoogaha shilimaad ah taasi oo u qorsheenaya in uu noloshiisa sii wato murugna kuma heeso xaaladaha hadda uu ku sugan yahay sababtoo ah wuxuu qorsheenayaa lacag uu horey u dhacay oo $1 milyan ah in uu heli doono صاحبتي زينب ayaa geysay meeshii ay lacagta ku aastay nasiib darro meeshii waxaa lagu aasay jim uu leeyahay iskuulka si kastaba ha ahaatee wuu xanaaqay balse wuxuu go'aansaday inuu lacagtiisa dib u helo muuqaalkii xiga waxaynu aragnaa nin gaangistar ah oo zaki madaxa u saaray dhalo isagoo weydiiyey lacag €2,000 oo uu horey uga deensaday inta aan la xirin ka hor zaki wuxuu sheegay inuu lacagta ku soo celin doono dhowr toddobaad gudaheeda dhanka kalena wuxuu ku codsaday inuu siiyo hoy waxaana laga siiyey guri qol ka mid ah kalaabka uu leeyahay ninkii uu lacagta horey uga deensaday habeenka zaki wuxuu qorsheeyey inuu dugsiga ka helo shaqo nadaafad ah sidaa darteedna uu ku galo dugsiga misna uu qodo meeshii lacagtiisa lagu aasay maalinta xigtay si uu shaqo u helo waraysi ayuu iskuulka u tagay wuxuuna la kulmay macallimad la yidhaahdo lesi shakhsi ahaan aad bay u furfuran tahay zaki wuxuu aaday xafiiska maamulaha wuxuuna arkay dad fara badan oo sugaya waraagsi sheeko inkastoo aysan u muuqanin dad doonayo shaqo xaqitaan ah ama nadaafad ah xariifka zaki ahaana si uu meesha u banaysto ayaa wuxuu jebiyey alarmigii dabdemiska halka ay dadkii kaleetana kala carareen wuxuu u galay maamulaha wuxuuna u sheegay in ay ardayda si khalad ah u ruuxay badanka maamuluhu waxay u heesataa inuu zaki doonayo shaqo maxallinimo isagana wuxuu isku dayey inuu u sharaxo balse fursadu ugu sharaxo waa ay siin wayday markii uu zaki ogaaday in macallimiinta la siiyo mid ka mid ah furayaasha jiimka iyo sidoo kale miishaar €2,000 zaki waa uu aqbalay fursaddii wuuna ka faa'iidaystay balse dhibaatada jirta ayaa waxay tahay zaki inuusan haysanin shahaado dugsiga bannaankiisa lesi waxay isku dayaysaa inay ka joojiso arday bannaanka sigaarku cabaya zakina wuu caawiyey wuxuu iska dhigay inuu ayada xiisaanayo wuxuuna u soo bandhigay in ay wadaagaan manaashishta dugsiga lagu barto balse zaki ujeeddadiis waxa weeyaan inuu ka hoos qaato shahaadadeeda tacliinta si uu asagana u xaraysto looguna aqbalo macallinnimada habeenkii xigtay waxay ku casuuntay gurigeeda si kastaba ha ahaatee markii ay yara mashquushay wuxuu shaxeeda ugu daray daroogo taasi oo keentay in ay suuxdo xarfaankii oo fursaddii ka faa'iidaysanaya ayaa baaray gurigeeda oo dhan si uu u helo shahaadadeedii ma uusan helin markii dambena wuxuu furay kombiyuutarka wuxuu isku dayey inuu brintigaraysto shahaadada balse maadaama uu degdegsanaa brintarkii ayaa u shaqayn waayey taas beddelkeedana feelashii wuxuu ku shubtay flash lesi saaxiibadeeda carol ayaa timid oo guriga soo garaacday zakina wuxuu iska dhigay qof la hurdo carolla way iska laabatay subaxdii xigtay waxay isugu yimaadeen iskuulka mana dareensanin wixii xalay dhacay si kastaba ha ahaatee saaxiibadeed kama aysan helin zaki wuxuu soo galay qolka macallimiinta dhanka kale waxaa daaqadii dabaqa iska turtay macallimad kale iyadoo ardaydeedu ay aad u dhibeen iyadana ay nolosha nacday iskana turtay nasiib wanaag way badbaadi waxbana ma noqonin booskii macallimadii tagtayna waxaa lagu bedeli doonaa lesi oo u dhigi doonto fasalka 10aad b fasalkan waxaa lagu yaqaanaa in ay isugu yimaadeen dibjiriintii ugu dambaysay waxay macallimiintu ku sameeyaan barankiyo kala duwan haddana aanan lahayn waxyeello kaleeto lesi uma faraxsana fasalka loo dhiibay zaki wuxuu galay fasalkii wuxuuna ardayda u sheegay in ay maalin walba keenaan filimaanta cajalka filimaanta ay daawdaan si ay fasalka ugu daawdaan wuxuuna u sheegay in uu dhibco fiican heli doono qofkii keeno filimka ugu wanaagsan zaki wuxuu u muuqdaa mid ku qanacsan waxbarista fasalkan dhanka kale dibjiriintii fasalka liza wax walbo ay tiraahdo macallimadda way ku qoslayaan wayna dhegaysan laashiin wax walbo ay u sheegto markii ay jeestada qaadatay wax ayaa gacanta uga dhigay markii ay damcay inay iska dhaqdana tuubadii ayaa u jabtay waxay garwaaqsatay in ay ardaydu ku samaynayaan brank markii ay garatay waxay qaadatay shukumaan markii ay shukumaankii isku dartayna shukumaanku wuxuu marsanaa ooliyo iyadoo aad u bahdilan ayay damacday inay baxdo markii ay qabsatay gacanka albaabka waxaa loo mariyey xaar waxay maamulaha ka codsatay in laga bedelo macallinnimada fasalkaas balse jawaabta ay maamulaha ka heshay waxay noqotay mid filan waa ku noqotay waxaa loo sheegay in ay macallinnimada isaga tagto haddii aysan u dulqaadan karin cadaadiska macallinnimo habeennimadii zaki wuxuu aaday qolka jiimka wuxuuna bilaabay inuu jebiyo derbiga guriga lesi saaxiibadeeda carol ayaa hagaajinaysa brintarka kaasoo daabacay shahaadadii lesi markii ay fiiriyeen tafaasiisha dabaacadda waxaa u soo baxay in la daabacay saacadihii uu guriga joogay zaki
liisi waxay uga sikisan tahay inuu isticmaalay shahaadooyinkeeda si uu shaqada ugu helo waxayna aaday iskuulkeeda waxayna baartay feelashii zaki ugu dambeynna waxay ogaatay in dhibcaha zaki iyo teeda ay yihiin isku mid shakigii ay qabtayna wuu rumoobay iyadoo xanaaqsan ayaa u tagtay zaki waxayna u sheegtay inay ka xun tahay maadaama uu isticmaalay shahaadooyinkeeda wuxuu u sheegay inuu siin doono lacag balse iyadana way ka diiday shayga keliyata ee murugada ku hayana waxa weeyaan in ay ka takhalluso ardayda fasalka tobnaad b heshiis kadib waxay maamulaha la socodsiiyeen in ay doonayaan in ay kala beddeshaan fasalka zaki wuxuu soo galay fasalkii dhibka badnaa ee dibjiriinta zaki oo doonayay inuu qaanadda wax kala soo baxo ayaa gacanta la galay waxaana faraha ka qabtay dabinka jiirka intii uu dabaguranayeyna wuxuu taabtay sirabta xigtay waxaana ku soo duldaltay ooliyo loo suray xagga sare ardaydiina qosol ayay la daateen zaki weli wuxuu doonayaa inuu wax sii bara markii uu kursigu ku fadhiistayna inuu ka kaca kursigii ayaaba diiday oo dabada uga dhigay maalinta xigtay xarbaankii zaki ahaa wuxuu soo qaatay qori xanuun badan ardayda qaar ayaa bannaanka jooga si ay ugu gembiyaan xiisadda markii ay damceen inay ordaanna xabaddii xanuunka badneed ayuu lugaha uga dhuftay mid ka mid ah dhammaantoodna xoog ayuu fasalka ku soo xareeyey waxa keliya ee u baahan yahay waa inay aamusaan kuleelna kuma heeso inay wax bartaan iyo in kale markii ay timid lezi fasalkiisa si ay uga qaadato jeesto waxay aragtay ardayad ooyi markii ay weydiisay waxaa ku dhacayna wuxuu ku yidhi aamus lezi wuxuu ogaatay inuu zaki doonaynin inuu ardayda wax baro oo uu doonayo inuu wakhtigiisa ku qaato khayaali habeennimadii zaki waxaa laga soo ceyriyey kilaabkii u deganaa isagoo garan laha meel uu aado ayuu ugu dambayntii aaday guriga liisa iyo carol oo moodaya tuug ayaa soo galay misna buris la dhacay meeshii uu jiifay ugu dambaynna waxay ogaadeen inuu yahay zaki habeenkaas wuxuu guriga la joogay liisa iyo saaxiibadeed iyo sidoo kale walaasheed ka yar oo la yidhaha lora subaxnimadii zaki wuxuu ka codsaday liisa in uu joogo gurigeeda 2 toddobaad oo keliyaata iyaduna way diidaneed maadaama uu horay u khayaanay si uu la sii joogay liisa shuruud ayay ku xirtay waxayna shuruud uga dhigtay in fasalka tobnaad b uu u bara ardayda si sax ah zaki oo dhibsanaya ayaa ka aqbalay maadaama uusan lahayn waddo kaleeto oo u ban si ay uga caawiso waxbarashada ayaa waxay siisay agabkii manhajka iyo sidoo kale xogta ardayda waxay kula talisay inuu xakameeyo hogaamiyeyaasha fasalka oo ah daniel iyo shantel haddii ay hogaamiyeyaashu ixtiraamaan in ardayda kalena ay ixtiraami doonaan zaki wuxuu akhriyey macluumaad ku saabsan hogaamiyeyaasha wuxuuna ogaaday in ay yihiin mooryaanta xaafadda habeenka xigay zaki iyo liisa waxay u baxeen casho waxaynu sheegtay daniel oo ah hogaamiyaha fasalka inuu yahay mid ku haminaya inuu mustaqbalka noqdo tuug weyn oo ka ganacsada daraagada taasina ay tahay sababta uusan u danaynaynin waxbarashada xogtan uu helay zaki waxaa laga yaabaa inuu u caawiyo ardayda habeennimadii zaki oo qodaya meeshii jiimka ayaa wuxuu arkay caag lagu aasay meesha sannada ka hor markii uu furay wuxuu arkay sawirka liisi iyo warqad yar uu ku qoslay qoraalkeeda xilligaas oo ay ahayd shuluq culayskeedana ahaa murugta ugu weyn ugu dambayna markii uu daalay wuxuu seexday miiska ardaydii oo ka faa'iidaysatay hurdadiisa ayaa wejigu u mariyey roseto zaki wuxuu dareemayaa xanuun liisana waxay isku dayday in ay caawiso daryeelka uu samaysay liisa waa mid uusan zaki horay u arkin taasina waxay keentay in uu ku dhasho zaki dareen hor leh maalinta xigtay zaki ardaydii tobnaad biiga wuxuu u waday dalxiis waxayna booqdeen guryaha ragga daroogada ka ganacsada taasi oo uu doonayay inuu wax ku baro daniel markii uu arkay nolosha dadka gaangiska ah waa uu ka raja dhigay wuxuuna go'aansaday inuu qaado waddo ka duwan tii markii hore uu ku fikirayay zakina wuxuu ardaydii kula taliyey in ay ku biiraan fasalka tiyaatarka liisa waxay qaateen taladii zaki waxayna ku biireen fasalka tiyaatarka halkaasi oo ay ku jilayeen rubaayad daniel wuxuu matalayay doorka romeo rubaayadiina doorkiisa wuxuu uga soo baxay si wanaagsan zaki wuxuu soo jeediyey in ay rubaayadani tahay mid aan xiise badnayn sidoo kaleetana lala yimaado qorshe kale oo kan ka fiican isagii ardaydii waxay dib u diyaariyeen qisa cusub taasi oo ay ka dhigeen nooc casri ah oo madadaalo ah dhowr toddobaad kadib zaki weli wuxuu wadaa qodaalkii isagii liisi aad bay isugu dhowaadeen ardaydana waxay bilaabeen in ay niyaddooda u jeediyaan dhanka waxbarashada iyagoo beddelay dabeecaddii dibjirnimada maalmo kadib waxaa la soo dhigay barta internetka qiimaynta darajada amaba heerarka macallimiinta waxbara liisi way niyad jabtay sababtoo ah iyada lama dooran macallimiinta intooda badan wax weyn uma arkaan qiimayntan balse liisi waxay dareemaysaa niyad jab maadaama ay kasban wayday qalbiga ardayda si ay u kasbato qalbiga ardayda zaki wuxuu kaxeeyey ardaydii iyo liisa iyagoo qaatay rinji kuna soo qoray goobtii tareenka ardaydii waxay arkeen sida ay u furfuran tahay liisa waxayna bilaabeen in ay ixtiraamaan askartii ilaalada ayaa ku soo yaacday waa ay baxsadeen ardayda kadib markii ay booliiska ku dhowaadeen inay qabtaan maalintii xigtay ardaydu waxay salaamayeen ayada oo ay si xushmad leh u aqbalayeen inay sameeyaan wax kasta oo ay tidhaahdo
dabadeed waxay aadeen dalxiis beeraha ah oo ay soo baashaaleen. fiidnimadii habeenkaas zaki wuxuu helay lacagtii uu raadinayey wuxuuna bilaabay inuu farxad la ooyo. kadib waxa uu aaday kalaabka oo iska bixiyey deemihii lagu lahaa. markii la weydiiyey inuu kalaab ku soo laabanayo, zaki wuxuu sheegay inuu jecel yahay nolosha uu hadda ku jiro. maalinta ciyaarta casriga ee Romeo iyo Juliet, ardaydu way welwelsanaayeen, laakiin ugu dambayn kaalinta labaad ayay tartankan ka galeen. ardaydu aad bay u farxeen sababtoo ah tani waa wax ugu horeeya ee guulaystay oo ay koox ahaan u sameeyeen. maalinta ku xigta fasalka jimicsiga ee jiimka, ardayad ayaa samaysay bootin sare oo si lama filaan ahna ugu dhici gaartay good ka hoos qodan jiimka. markay Liisi u dhaadhacday inay hubiso, waxay maqshay Zaki oo dhan kala jooga oo qof taleefon kula hadlaya. wuxuu u sheegay wax walba oo ku saabsan ujeedadiisa dhabta ah ee uu iskuulka u yimid. Liisi waxay dareemaysaa in la qiyaameeyey. waxa kale oo ay ogaatay dambiyadiisii hore u galay, waxayna ku hanjabtay inay wacayso booliiska haddii aanu si degdeg ah uga tagin shaqadiisa iyo gurigeeda. isagoo aan si kale u qancin, Zaki waxa uu oggolaaday inuu baxo. maalinta xigta waa maalinta imtixaankii weynaa ee ay ardaydu diyaarinayeen muddo dheer. kor inta aysan bilaabin, waxay soo baxsadeen sawirro kala duwan oo ay eegayeen. markii la weydiiyeyna waxay sheegeen in Zaki uu kula taliyey inay keenaan sawirradii ay aad ku jecel yihiin si ay dhiirigelin ugu noqoto ayaga. arday ayaa waxa uu Liisi u sheegay in sawirka Zaki uu jecel yahay dhiirigeliyana uu ku jiro qaanadiisa. iyada oo yaaban ayay eegtay, waxay aragtay sawirkeeda oo uu ka helay caagii yaraa. isla markaa Zaynab ayaa timid oo wada warqad uu Zaki Liisi u dhaafay. warqadda ayaa sheegaysa inuu ka xun yahay inuu lumiye kalsoonideeda. wuxuu sidoo kale sheegay inuu go'aansaday inuu bilaabo nolol cusub oo macallinimo ah xitaa kadib markii uu lacagta helay. Zaynab waxay intaas ku dartay in Zaki uu socdo inuu dhaco banki isagoo la socda dad xun. haddii aysan Liisi joojin isaga, waxaa laga yaabaa inuu mar kale ku noqdo dambiyadiisii hore. Liisi isla markiiba waxay isku dayday inay wacdo, laakiin taleefanka lama qaban. waxay heshay fikrad ah inay ardaydu sameeyaan barnaamij ay ku ogaanayaan goobta uu simkaarkiisa yaalo. qorshuhu wuu shaqeeyey, laakiin Zaki ninkii la socday ayaaba ku dheelay qorshaha. ugu dambayntii Zaki wuxuu doonayaa inuu ku sii noolaado noloshiisa macallin. wuxuuba ka leexday qorshahan. intaas kadib wuxuu aaday guriga Liisi isagoo hadiyad u wada. wuxuuna ka codsaday inay aqbasho jacaylkiisa oo ayna kala qayb gasho xaflad. way aqbashay waxayna furtay sanduuqa oo ay ku aragtay lebis qurux badan. iskuulka maamulaha waa ay oosay markay aragtay waraaqaha imtixaanka ee fasalka 10aad B. dadaal fiican ayay muujiyeen ardaydan, waxayna waxaas oo dhan uga mahad celisay Zaki. waxayna doonaysaa inuu sii ahaado macallin joogto ah, laakiin Zaki wuxuu u sheegay in aan u qalmin oo uusan haysanna shahaado jaamacadeed. maamulaha waxaas waxba uma aragto oo waxay u samaysay shahaado oo ayna u oggolaatay inuu joogo. ugu dambayntii lamaanahan waxay si farxad leh uga qayb galeen xafladda. filimkani halka ayuu ku dhammaaday. fadlan haddii aad nagu cusub tahay sabscribe-daada waa inuu dhiirigelin. haddii aad muuqaalka ka heshayna like saar kana mid noqo asxaabta ku xihan. mahadsanid.